sida la socota galmudug dagaalka ka taagan maaragtay waxaana ka socda buuq iyo maaragtay isdhacyaa saa la socota madaxweynihii waa tacaalka laga qaaday haddana xalay 24 kala xildhibaan ah intay shireen waxay dhaheen madaxweynaha gudoomiyaha halka qaadnay ujeedada waxaa umaleynaa inay ujeedaan maaragtay markii la wada hadli waayo in barbardhac la isugu yimaado wax lamid waa gartay marka sida ka xaaladda waa okay waaye hadda wax dhiba weyn ma jiraan insha allah waa arkayna wax kala soo baxa laakiin de xildhibaanadu hadday shireen xaq bay u leeyihiin soo maaha adiga iyo gudoomiyaha baarlamaanka hadday idinka qaadaan waa shaqadoodii soo maha xildhibaanada kooran bay u baahan yihiin oo maaragtay 46 ah kadib maaragtay ka hadli karaan ama ka jeedi karaan tiradaas wax u doonana maaha inay ka qaadaan waa gartay ma ka warqabtaan tirada xildhibaanada shiray oo xilka idinka qaaday idinka fiican waa imisa tiradooda 24 waa gartay laakiin adu waxaa taageersanayd in madaxweyne xaaf xilka laga qaado oo baarlamaanku xilka ka qaadeen baa taageersanayd xildhibaanada laftirkiisa xilka ka qaadeen waxaa la sheegayo isaguna uu sheegay sida adu hadda u sheegaysid inay tiro yar ahaayeen marka isagaba haddaad ogashaan xilka laga qaaday adigu maxaad ku diidaysaa asaga waxaa maaragtay magaca ii sheegay laga qaaday tiro xildhibaano dhan konton shalay maaragtay waa qaararka xildhibaanada waa yaala xildhibaanada galmudug 89 waa gartay boqol iyo midna maaha marka xildhibaan walba asaa cadeyn doona waqtigeeda haddii la yidhaahdo waxaad iga warantaa ciidamo badan baa magaalada soo galaa la leeyahay oo hub aan sharci ahayn xitaa magaalada la soo galay dadka deegaanka cabsi bay qabaan khilaafaadkan oo dhan oo madaxdiinu galmudug ugu sarreysay aad abuuraysaan soo lama dhigi karo isku dhacayay dhalin karaan waxyaaba laga baqaayo aada u daran oo arrimahaas waa jiraan dadka waaweysiin hub badan iyo waxyaaba badan oo magaalada laga joogana waa jiraan arrimaha miga runtii faray ka baxeen marka waxyaabaa u baahan wax laga qabtana waa gartay dhowaan wafdi baa idin yimid iyo xildhibaano ka socda aqalka sare ee Soomaaliya iyo golaha shacabka Soomaaliyeed waxay sheegeen in madaxweyne xaaf iyo adiga iyo gudoomiyaha baarlamaanka isku keeneen markii dambana xalkii ay diideen adiga iyo gudoomiyaha baarlamaanku maxaad ku diideen in wada hadal lagu dhameeyo arrintan xildhibaanada sanatarada nooyin waa ahayn dhinaca runtii mana laga hadlin wax haba yaraatee arrimaha ku saabsan arrimaha laisku qabtay ama arrimaha qaliijka ama madaxweynaha halka laga qaaday wax lamida meesha dowladda marismada laga hadlin waana diiday in laga hadlo marka total waxaa dhihi karaa maaha dad dhexdhexaad ah ama wax hal u socod maxay idinkala hadleen haddaad is aragteen waxay maaragtay wax sheegta waxbaa laga siinaa sida anagoo guriga wax lamida raadinay waa gartay oo wax laaluush iyo lacag kale u dhigma waa gartay oo xildhibaanadu idin leeyihiin arrintan macnaha ka tanaasul ka tanaasul waxaan saana lagu heshiiyaamo maxaa xal u aragteen marka haddii ugu dambeyn ay iyaguna sheegeen inay fashilmeen wada hadalladii adiguna aad diiday arrintay kuu soo jeediyeen halka wuxuu yahay in dastuur leeyahay dowladda federaalka dastuur leedahay ayaga lagu kala baxayo iyo sharci waxaa la leeyahay dowladda Soomaaliya adiga iyo gudoomiyaha baarlamaanku heshiis bay idin kula jirtaa in madaxweyne xaaf meesha laga saaro oo madaxweyne cusub galmudug ay yeelato oo la leeyahay nin deegaanka ka soo jeeda loo wataa oo hadda sida uu xaaf sheegayo ciidamo magaalada la soo galay oo Malaysia marka soo lama dhigi karo khilaafka iyo dhibaatada deegaanka ka jira adiga gudoomiyaha baarlamaanka hormuud bad u tihiin wax isku dhacay maaragtay runtii oo aan wada ka jirin warkaas oo dhan insha Allah runtii gaar doontaa waa gas maxaad xal u aragtaan marka hadda arrintan waa ujeedaa muddo bay iska daba laabanaysaa ilaa haddana wax la isku soo dhaweeyay ma jidho marka maxaad is leedahay xalku ku jira waxaan waqtigaas socon doonaa dilaara waqtigaas socon doonaa runtaan isugu imaan insha Allah waa gartay doorashadii madaxweynaha baa xildhibaano sheegeen inay abaabulayaan marka xaggee wax marayaan iyada haddaad ka warhayso markii dhacay insha Allah dilaara waa gartay ugu dambeyn waxaad iga warantaa waxgaradka iyo deegaanada aad adigu ka soo jeedo dadka ka soo jeeda laftirkooda baa waxaa la leeyahay waxa ay diidan yihiin laftirkaagu inaad kursiga sii joogto oo waxay wadaan abaabul adiga kaa dhana oo deegaanka gobolka waqooyiga galgaduud oo kale sidee u aragtaa arrintaas waxaa iska rabaa waxa maaragtay sheekada waa gartay warqad kala soo baxday madaxweyne ku-xigeen oo lagu taageerayo go'aanka ay gaareen 30 bisha oo shalay ahayd xildhibaano ka tirsan galmudug oo la leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku saxeexan sida warqadda la sheegay inkastoo shalay aanshaheedan xaqiijin karin sidee kula tahay in adiga iyo gudoomiyaha baarlamaankaba inna wax lahayn
warqadaas maaragtay waxaan filahaa inay meelamartahay kulli warbarmaa gudaha ayada ka jawaabi doontaa duleera